dhiiggaasi ha la joojiyo nin walbana xilka kaga aadan ha ka qabto daacadna ha loo noqdo ilaahayna ha laga cabsado fidna lagama faa'iido ninna dhiigga walaalkii guul iyo gobonnimo ku xaqiijin maayo nin ku xaqiijin kara guul iyo gobonnimo ku keenaya walaalkii dhiiggiisoo xaqdarra ku daadiyo ma jiro shaydaan iyo naf baa been kuu sheegi marka dambena waa laga qoomamayn araajiifta iyo dembi bini aadan iyo makhluuq laga gaana waxaa ugu ba'an oo ugu liita oo ugu shar badan dhiig qof muslima xaqdarro loo daadiyo wax ka adag ma jiro saa darteed baan la cafinin xaqulcibaad ilaahay ma cafiyo cibaado kastood la timaada lagaa tiri maayo lagaa baabi'in maayo inaad ka toobad keentana waxay ku xidhan tahay axadkii aad ku xadgudubtay inuu ku cafiyo ama asagii la raalli gareeyo aakhariya adduunba saa darteed shirkiga towbaa lagu dhaafaa laakiin xaq darro bini aadan ood gashay iyo dhiiggiisoo daadisay asagun baa kaa cafiyi kara hawsha marka aad iyo aad waa in lagu baraarugo la iska ilaaliyo shareecadoonu iska daa dhig la daadiye ruuxa muslimkaa dhibkiisa bay tillaabiyun dhowr u qaaday si la iskaga ilaaliyo looga baaqsado qof muslim aad dhibto dhibkaasoo waaga dambe keeni kara inuu u dhinto ama u naafoobo waad ogtiin nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam ninkii soo mara suuqa muslimiinta iyo meelay iskugu yimaadaan iyo masaajidda ninka imanaya asagoo wata wax caarad leh mudac midi toori seef waran iyo wixii la halmaalaa ninkii meelaha soo maray waa inuu afka qabto shayga asaga ama galgeliyo suu axad muslima uusan u dhibaataynin wuxuu kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam ka digay oo yidhi ma bannaano lamana ogolo ruux muslima inaad ku fiiqdo wax muda ama turqa sida toori iyo waran iyo leeb oo kale waa ku fiiqid xataa markaad ishaaraysid midaarayso gacanta oo ballaaran ku ishaar fartaada taag laakiin tooridii hebel wakaa inaad dhada lama ogolo qori inaad ku qabato lama ogolo adoo wax tilmaamay waa ishaaro wuxuu nabigu ka digay calayhi salaatu wasalaam bal wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه وحارض لأما مدعى لأما عربض وكلام نك روح مسلم أتاق أما كفيقا ملائكة اللعنة ذيسة قفك مسلم كا هنقض ولالك هو يدا يا أبها مدى دلي ما دام يدعي كرتو شيء عارض له هبكا انتو قعنت هذا كبح عيونه ولالك الدباتي لعنة الملائكة ماشى لقرت بي ولي waxaa sharcigu ka hadlahayaa dhaqan xumada ku aadan ruuxa muslimka dhibaatayntiisa oo wali gaarsiisanayn geeri iyo dil waxaa loo sansininayaa in dariicada iyo wadiiqaha xun loo hor istaago saan muslim dhibaato u gaarin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in hubka iyo seefta iyo wixii lamida la isu dhiibo asagoo galla iyo toorida toori walaalka inaad u dhiibto iyadoo galla lama ogolo galkeeda iyadoo ku jirto u dhiib macalsuunkeeda u fur laakiin ayadoo caddaysimo ah in ruuxa muslimka loo dhibo waa xaaraan qadiyadda marka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in hub aan la daboolin ama aan la gelinin galkiisii ama aan gacan lagu qabanin oon la asturin muslimiinta lala dhex maro in la isku fiiqo in la isu dhiibo waxaasoo dhan waxaa ka iman kara in loo dhinto ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisu qadiyadda ruuxa muslimka damkiisa iyo dhiiggiisa aad bay uga hadleen